عدوينا كاسري كيجينا كلا شري ميدنا قديسا توما كيجا شعلي مقال كيجا كنحيجو مقال كيجا كنحيجو qofka muslimka ah dhaarta uu ku dhaartay kitaabka quraanka ah waxa ay kamid tahay waxyaabaha lagu aamino marka mas'uuliyad lagu saarana kuma sii jirto Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre waxay isaga iyo farmaajo noogu dhaarteen in ay ilaalinayaan dastuurka diinta iyo dadka Soomaaliyeed hase yeeshee kutubka markii ay mareen ayaaba xasuustii ugu dambeysay Ra'iisul Wasaare Khayre waxa uu maalin cad u gacan galiyay muwaadin Soomaaliyeed Itoobiya oo aysan jirin cid ilowsan waxa uu mudan karo halgama Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax waxa uu ahaa intii uu wax gartay mid u dagaalama sharafta iyo qiimaha dadka iyo dalka Soomaaliyeed gesiga dhulkiisa gusha uu horseeda geerida dishay geedka waxa uu naftiisa u huray dalkan sidii uu u noqon lahaa cadawgiisana uga guuleysan lahaa hase yeeshee kuwii uu sharaftooda u dhimanayay ayaa madaxdoodii Ra'iisul Wasaare Khayre iyo Sanbalolshe waxa ay duhur dharaareed intay dalkiisa ka soo qabteen u gacan galiyeen cadawgii uu la dagaalamayay Ra'iisul Wasaare Khayre waxa uu meel iska dhigay dhaartii ahayd inuu dalka iyo dadka iyo diinta difaacayo waxa uu si cad u jabiyay dastuurka jamhuuriyadda u yaala waxa uu ku tuntay sharaftii iyo qiimihii ummadan waxa uu agoon ka dhigay reer Soomaaliyeed oo farxad iyo sharaf ku noolaa iyagoo diyaar u ah in oo aabahood u dhinto sharafta dalkan hase yeeshee kuwii uu hiil iyo hooba ka sugayay ayaa god madow ku riday Ra'iisul Wasaare Khayre waxa uu kamid ahaa injineerada ama hay'adaha gaarka loo leeyahay oo wax waliba qiimo lacageed ay u joogaan sharaf diin wadaninimo iyo daacadnimo wax kuma cabiro waxa kala weyn shilimaadka laga helo cadawga oo uu diyaar u yahay in uu qof waliba u dhiibo isagoo jeesjeesaya ayuu yiri waxaan afduubay hay'adaha nabad sugidda markii ay timaado ammaanka si uu shaatigiisa isaga wasaqeyn waxa la yiraahdaa hay'adaha sirdoonka u taliya marka aduu afduubay waxaan isaga noogu xog ogaalsan dalka amnigiisa waxa dabinka ku soo dhacay Sanbalolshe oo bixin doona qiimo aad u xanuun badan sida magac xumo nolol xumo iyo cambaar aan weligiis ka harin sarkaalka la sheegay inuu ONLF yahay ee dawladdu wareejisay sida la socotaan ba arrinkaas waa arrin xasaasi ah oo ay tahay waqtigeeda iyo goobteeda in looga jawaabo sida kuwii iibsaday badda waa haddii aanun haysan amarkii Khayre iyo farmaajo isla markaana aanu la wadaagin shacbigan Soomaaliyeed oo walaalkeena dawladda Soomaaliya qaaday waxa loo dhibay Itoobiya doonayno haddaba Khayre dal ma lagu aamini karaa waa su'aasha cid waliba ay hoos isku weydiinayso laakiin hadda uma baahna in kor la isku weydiiyo si cadna looga jawaabo taasoo ay jawaabteedu ay tahay maya 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 عدوينا كاسري كيجينا كلا شري ميدنا قديسا توما كيجا شعلي مقال كيجا كنحيجو مقال كيجا كنحيجو